horyaalka talyaaniga ayaa isagana si habsami leh ugu socda dalkaasi talyaaniga. Serie A-da weji cusub ayay gelaysaa. Dabcan lama saadaalin karo sanadkan kooxda ku guuleysan karta oo kooxaha horeeya waa aad bay iskugu dhadhagan yihiin. xalayna waxaa ciyaaray kooxaha Inter, Napoli iyo Milan intuba way ciyaareen. Natiijooyinkii kasoo baxay ayuu saaxiibkii mar kale nala falanqeyn doonaa. kulamo badan oo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay run waaye. waxaa dhacday kulan Napoli la wada sugayay. Napoli natiijo ay heli doontaa la isdhahayay oo natiijo yaab leh ay ka dhacday. Milan waa badisay sidaa wada ognahay. Roma waa laga badiyey. kulamo aad u xiiso badanna wada dhici doonaan. maadaama Napoli bareejo ay gashay, fursad dahabi ayay haysataan kooxaha Inter iyo Milan labadaba ma dhihi karaa ay markaan hoggaanka ku qaban karaan intaan la gaarin January sanadka 2022. waa la dhihi karaa inkastoo fari kama qodnay tahay faanol fari kama qodnay tahay. kulamada soo aadan waa isdhihi karnaa hoggaanka waa laga qaadi doonaa Napoli oo natiijadeedii xalay aad ayay u xumaatay taageeroodii ayagaba. labada Milan ka waran, labada Milan fursadda ay u haystaan inay sanadkan horyaal qaadaan sidee u egtahay siba Milan oo aad sanadkan loo faaninayo. AC Milan waa qaadi kartaa aan isleeyahay aniga haddii aan ka hadlo fikirkayga. natiijadooda iyo si u ciyaarayaan iyo qaab ciyaaroodkeedana aad u wacan yahay. caawana waxaa la filayaa Lazio Udinese sidoo kale. Milan waa ay badisay, Inter way badisay, Napolina waa la hakiyey. habeenkii ka horreeyay Atlanta iyo Juventus ayaa labadaba badiyay dhegeystayaal. halkani kala socdo barta ciyaaraha Somali Positive 22 iyo arrimaha bulshada. sidoo kale waxaan falanqeyn doonaa horyaalada Jarmalka iyo Isbaanishka oo ayaguna dabcan hawada noogu soo maqan oo dabcan aan shakhsiyaadkii noo qabilsan arrintaas iyo shaqadooda dib ugu bilaabi doonaa. leedahay mahadsantihiin.